golaha wasiirada magaalada Gurceel dhammaan golayaasha wasiirada iyo madaxweynihii xukuumadii oo dhan oo halkan joogta ilaahay waxaan uga mahadnaqaynaa caawa waa habeenkii ugu horeysay ee golaha wasiirada ay baasgareeyaan in degmada Gurceel iyadoo hore degmo u ahayd ay noqoto degmo sharciyeysan ma aha inay degmo hore u ahayd degmay hore u ahayd laakiin waxay ahayd degmo aan sharciyad lahayn laakiin caawa golaha wasiirada waxay ansixiyeen degmada Gurceel inay noqoto degmo leh si sharciya ku timid ay baasgareeyeen golihii wasiirada warbixin dheer oo laga dhageystay wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo gudbisay golihii wasiirada way ansixiyeen waxaan noo xigi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda inaan u gudbino baarlamaanka Galmudug insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo processkeedii aan noo bilowday waxaana ballan qaadaynaa ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan sida ugu dhaqsaha badan leh inaan u magacaawno waxaan rabaa marka ugu horeysay inaan u mahadceliyo xukuumadda dowladda Galmudug oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xubnaha golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo caawa halkan ku matalayo wasiir dowlaha wasaaradda ahna kusimaha wasiirka dhammaan iyo xubnaha wasaaradda arrimaha gudaha ka jooga waxaan rabaa inaan marka koowaad anoo ku hadlaya afka bulshada reer Gurceel inaan uga mahadceliyo wasiirada dhammaantood arinta caawa ka qabsoontay degmada Gurceel oo ah markii ugu horeysay in shirka golaha wasiirada oo ka qabsoomo degmada Gurceel runtii waxay noo tahay sharaf iyo muxuu ahaay wax aan la hilmaami doonin markii ugu horeysay in aan nahay horta degmadii ama ay Gurceel noqotay markii ugu horeysay in shirka golaha wasiirada uu ka dhaco faa'iidada labaad oo ay noo lahaydna waxay ahayd in si toos ah caawa loo ansixiyay degmada Gurceel runtii dee Gurceel horey degmo ayay u ahayd laakiin warar badanaa ka jiray degmanimadeeda marka caawa waxay soo afjaraysaa shirkan warkii yaryaraayo ka jiray degmanimada Gurceel mar haddii golihii wasiirada ee Galmudug ay ansixiyeen waan uga mahadcelinaynaa marar badan waa ku celcelinaynaa mahadcelinta waa ku bogaadinaynaa waana uga amaalhaynaa haddaan nahay bulshada reer Gurceel waxaana leenahay amaalka madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye iyo xukuumaddiisu ay noo galeen waa mid aan la iloobi doonin waa mid taariikhi ah waa mid runtii dee meel dheer ku qormi doona horey madaxweyneyaal hore way u soo mareen Galmudug laakiin fursaddan kama aynaan helin aan caawa haysano waxaan hubaa runtii oon qirayaa muddadii aan wada shaqaynaynay madaxweynaha oo aniga aan xafiiska joogay xilli walba madaxweynuhu iyo xukuumadda jirtayba iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu waxay mar walba ka shaqaynayeen oo muddo sanad ah aan wadnay processkan annaguna aan u laabanayno ku laabanayno wasaaradda arrimaha gudaha meesha ay wax u marayaan